Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka oo aan ku soo qaadan doono. Xuutiyiinta Yaman ee xulafada la ah Iiraan ayaa sheegtay in ay weerareen warshadda sifaynta shidaalka ee Jazan oo ay leedahay shirkadda Sacuudi Aramco iyadoona 2 maalmood kadib markii boqortooyada Sacuudiga heshiis difaaca ay la saxiixatay Turkiga iyo Bakistaan. Kaas oo loogu gol lahaa in loogu jawaabo xasilooni daradii sii kordhisay ama xasilooni darada sii kordhaya ee gobolka taa oo ka dhalatay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jiraan Iiraan. Haddaba maxay tahay khasaaraha ba'an ee weeraradan ay geysteen iyo Sacuudiga oo ka hadlay arrinkaasi? Intaan ku guda jirno barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka ayaan ku soo qaadan doonaa. Sidoo kale barnaamijkana waxaan ku eegi doonaa haddii Rabbi Subxaanahu wa Tacaala ogolaado. Iiraan waxay sheegtay in ay ku dhowdahay in heshiiska madambeys ah ay la gaarto Cumaan, kaas oo lagu qeexayo marinada cusub ee maraakiibta ee labada dal u dhaxayn doono kana gudbi doono marinka Hormuz, iyadoona Iiraan ay soo bandhigtay shuruudo ay ku jiraan magdhow iyo shuruudo kale oo dhowr ah. Haddaba maxay ahaayeen shuruudahaas ay soo bandhigtay Iiraan? Waxaa kaga bogan doontaa barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Iyo ugu dambeyntii anagoo qeybaha dambena aan ku soo qaadan doono haddii Rabbi ogolaado. Hogaamiyaha kacaanka Islaamiga ah Ayatullaahi Mujtaba Xuseen Khamenei oo magacaabay hoggaan cusub kaas oo wakiil ka noqon doona ama ku matali doona golaha sare ee amniga qaranka Iiraan. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaan ku eegi doonaa haddii Rabbi ogolaado. Ha yeeshee intaan u gudagalin dhammaan faahfaahinta qodobadaas oo idil muuqaalka like noo saar la wadaaga asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo bahdayada ee hoggaan media ka qayb qaado kor u kaca channelkeena. Taariikhduna waa 10 Agoosto sanada 2026. Magacaygu waa Haashim. Ku soo dhawow mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Haddii aynu ku horeyno, Iiraan waxay sheegtay inay ku dhowdahay in heshiiska madambeys ah la gaadho Cumaan, kaas oo lagu qeexayo marinka cusub ama marinada cusub ee maraakiibta ee labada dal u dhaxayn doono kana gudbi doono marinka Hormuz. Hase yeeshee Iiraan waxay mar kale ku celisay in Mareykanku uu marka hore fuliyo shuruudo dhowr ah oo ay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin magdhow laga bixiyo khasaaraha iyo in cunaqabateynta laga qaado iyo in la joojiyo hanjabaadaha militari ee ka hor inta aan dib loo furin maranbiyoodka istiraatiijiga ah. Haddaba sarkaal Mareykan ah ayaa Reuters u sheegay in Iiraan iyo Cumaan ay ku dhow yihiin heshiis horseedi kara in dib loo soo celiyo isu socodka maraakiibta ee nabdoon ee marinka Hormuz. Hormuzna waa marin muhiim u ah oo ay maraan maraakiibta shidaalka iyo gaaska ka hor inta aan Iiraan xanibin marinka, taas oo uga jawaabaysay weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ee lagu qaaday Iiraan, kuwaas oo ka bilowday dabayaaqadii Febraayo. Haddaba wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in heshiiskan Cumaan ee ku saabsan Hormuz uu marayo marxaladii ugu dambeeyay. Hase yeeshee wuxuu mar kale ku celiyay hadalkii uu Sabtidii sheegay, kaas oo ahaa in Tehraan aysan dib u furi doonin marinka ilaa iyo Mareykanku uu buuxiyo shuruudo ay Iiraan soo bandhigtay. Haddaba wakaaladda wararka Mehr ee Iiraan ayaa soo xigatay Araghchi oo sheegay in heshiiska Iiraan iyo Cumaan uu qeexi doono marinada cusub ee maraakiibta loo isticmaali doona markii Mareykanku buuxiyo shuruudahaasi kadibna marinka Hormuz dib loo furi doono. Iiraan iyo Mareykanka wadahadallo toos ah ma yeelan, waxaana Tehraan ay sheegtay inaysan bilaabi doonin wadahadallo toos ah inta Washington ay jebinayso heshiiska ku-meelgaarka ah oo labada dhinacba ay ka kala saxiixdeen bishii Juun. Mr. Araghchi wuxuu sheegay in fariimo la isku dhaafsanayo iyadoo loo marayo dhexdhexaadiyaal iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wareysi siiyay Axios ku sheegay in Mareykanku arrinta Iiraan si hoose u maaraynayo. Wuxuuna yiri, waxaan iyaga la gorgortamaynaa oo keliya si xadidan. Waxaana keliya isha ku haynaa Iiraan oo la tacaalaysa sicir barar aad u sareeyo iyo xaqiiqda inaysan haysanin lacag. Haddaba maxay tahay shuruudaha ay ku jirto magdhowga? Araghchi wuxuu sheegay in dib u furista marinka Hormuz ay qayb ahaan ku xirnaan doonto in Mareykanka uu buuxiyo magdhow khasaaraha ka dhashay weeraradii baaxadda lahaa ee lagu qaaday Iiraan. Xoghayaha hay'adda ugu sareysa amniga qaranka Iiraan Mohammad Baqir Zulqadar ayaa isaguna tibaaxay shuruudaha keliya ama shuruudo keliya oo ay ka mid yihiin: 1. In Mareykanku uu joojiyo hanjabaadaha cusub ee ka dhanka Iiraan. 2. In la joojiyo gardarada ka dhanka Iiraan iyo xulafadeeda Lubnaan, Falastiin iyo Yemen iyo Ciraaq.
sidoo kale qodobka saddexaad oo ah in Mareykanka uu ka qaado xanibaadda badeed ee uu ka saaray gacanka. Afar, iyo in laga qaado cunaqabateynta dhaqaale ee saaran Iiraan. Iyo shan, in Iiraan loo sii daayo hantida Iiraan laga xanibay. Mareykanka iyo Israa'iil waxay duqeymo cirka ku qaadeen Iiraan in ka badan 5 bilood ka hor. Trump wuxuu sheegay in weeraradaasi ujeedadoodu ay ahayd in laga hor istaago Jamhuuriyadda Islaamiga in ay horumariso hubkeeda nukliyeerka isla markaana la wiiqo awooddeeda ay gobolka ugu hanjabi karto. Washington iyo Tehran waxay bishii Juun ku heshiiyeen xabad joojin, hase yeeshee Mareykanka bishii Luulyo wuxuu dib u soo rogay xanibaad ka dhan ah maraakiibta Iiraan ee gacanka. Tehran waxay tallaabadaasi ku tilmaantay mid jebinaysa xabad joojinta, taas oo xilligaasba horey u burburtay. Sarkaal Mareykan ayaa Reuters u sheegay isagoo codsaday inaanu magaciisa la shaacinin marka heshiiska lagu dhawaaqo ee dib loo soo celinayo maraakiibta ganacsiga isu socodkooda iyadoo aan wax caqabad jirin. Mareykanku wuxuu qaadi doonaa xanibaadda dekedaha ee Iiraan. Sarkaalkan ayaa sheegay in tallaabooyinka Mareykanka ay ku xirnaan doonaan sida Iiraan ay u fuliso waajibaadka ay heshiiska ku qaadatay. Waayahay, haddii aan eegno qodobka xiga, Xuutiyiinta Yemen ee xulafada la Iiraan ayaa sheegtay in ay weerareen warshadda sifaynta shidaalka ee Jazan oo ay leedahay shirkadda Saudi Aramco 2 maalmood kadib markii boqortooyada Sacuudiga heshiis difaaca la saxiixatay Turkiga iyo Pakistan, kaas oo loogu gol lahaa baa la leeyahay in loogu jawaabo xasilooni darrada sii kordhaysa ee gobolka, taas oo ka dhalatay dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay kula jiraan Iiraan. Lama cadeynin in Pakistan ama Turkiga ay qayb ka qaadan doonaan iyo haddii ay qaadanayaan qaabka ay uga qayb qaadan doonaan jawaabta Sacuudiga weeraradii ugu dambeeyay. Haddaba Xuutiyiinta bishii hore waxay ku dhawaaqeen xanibaadda dhinaca badda ah oo ay ka dhan tahay Sacuudiga, gaar ahaan dhinaca badda cas, iyagoo sabab uga dhigay waxay ku sheegeen go'doomin uu Sacuudiga ku hayo. Riyadh ayaa eedaasi beenisay. Wasaaradda tamarta Sacuudiga waxay sheegtay in dab uu ka kacay warshadda sifaynta shidaalka, balse markii dambe la damiyay iyadoo aan wax dhaawac la soo sheegin. Wasaaraddu waxay intaa ku dartay in mas'uuliyiinta ay gacanta ku hayaan xaaladda balse aysan sheegin waxa sababay dabka. Afhayeenka militariga Xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa bartiisa X ku qoray in Xuutiyiinta diyaarad aan duuliye lahayn drone ku bartilmaamsadeen warshadda. Xuutiyiintu horey ayay weeraro ugu geysteen xarumaha shirkadda Aramco ee Jazan. Warshadda Jazan waxay ku taallaa koonfur galbeed Sacuudiga, waxayna sifaysaa qiyaastii 400,000 oo foosto oo saliida ceyrin ah maalinkii. Waxayna sidoo kale horey u weerareen magaalada Yanbu ee ku taalla xeebta Badda Cas. Bayaan kale oo soo saaray Yaxya Sariic ayaa lagu sheegay in Xuutiyiintu ay gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ku weerareen magaalada dekedda ee Moja oo ku taalla xeebta Badda Cas ee Yemen. Dekedda Moja waxaa gacanta ku haya dowladda fadhigeedu uu yahay Cadan, waxayna ku dhowdahay marinka istiraatiijiga ee Bab al-Mandab, kaas oo isku xira qaybta koonfureed ee Badda Cas iyo gacanka cadmeed iyo badweynta India. Waayahay, ugu dambeyntii haddii aan eegno, hogaamiyaha kacaanka Islaamiga Ayatollah Mujtaba Hussein Khamenei ayaa Dr. Muhsin Razai u magacaabay in uu noqdo wakiilka ku matalaya golaha sare ee amniga qaranka Iiraan. Dekreeto uu hogaamiyuhu soo saaray ayaa sareeya guud Razai oo horey u ahaa taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga IRGC ugu magacaabay inuu noqdo wakiilkiisa golaha sare ee amniga. Anigoo tixgelinaya waayo aragnimada qiimaha badan, waxaan halkan kugu magacaabayaa adigoo ka mid ah hormuudkii muddadii 8 sano ahayd ee difaaca barakaysan inaad noqoto wakiilka iyaga golaha sare ee amniga ee qaranka. Waxaan rajaynayaa inaad si buuxda ugu guulaysato guushaas ama gudashada mas'uuliyaddan muhiimka ah, ayuu hogaamiyuhu ku yiri dekreetada. Ayatollah Khamenei wuxuu sidoo kale ugu mahadceliyay Maxamed Baqir Sulqadar oo ra'iisul lagu bedelayo dadaaladii iyo shaqadii uu habeen iyo maalin ka qabtay ama u qabtay xilka. Maalintii dambe madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa Razai u magacaabay in uu noqdo xogayaha guud ee golaha sare ee amniga qaranka. Mehdi Tabatabai oo ah afhayeenka xafiiska madaxweynaha Iiraan ayaa ku dhawaaqay magacaabistan isagoo sheegay in Sulqadar uu xilka iska casilay si uu mas'uuliyad cusub u qabto. Sulqadar oo xilka xogayaha golaha sare ee amniga qaranka hayay tan iyo Maarso 2026. Guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka caalamka oo aad kala socoteen Hoggaan Media intaas ayaan ku ekeenaynaa. Muuqaalka naga hilmaamin laakiin aad noo saarto la wadaaga asxaabtaada, fikradaadana ama aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.